laakiin wuxuu mar walba geli jiray duulimaadyo badan oo adduunka ah wuxuuna mar walba niyeysan jiray inuu helo qaab uu music u dhageysan karo inta uu safarkiisa ku jiro marka 1979 wuxuu Akia keenay fikradii Sony Walkman waa music player la qaadan karo oo play gareynaya cajaladaha dhageysiga kaasoo ku dhageysan karto headphones laakiin haddana waqtigaas waxa guud ahaanba dadka ka gashan jiray headphoneska kuwa dhaga culayska qaba waxayna dagaala'aantu ka mid ahayd waxyaabaha loo arko Qeybta dhexdiisa sidoo kalena rikoodhada cajaladaha lagu duubay way jireen in muddo ah wayna duubi karayeen codka sidoo kalena dib u play gareynayeen marka cid walba waxay u aragtay in fikradda Walkman ahayd mid xun ayna Sony mar labaad yeelanayso alaab khasaaraysa sidee doontaba ha ahaatee Akia uu aaminsanaa fikradda music player aad meel walba u qaadan karayso inay noqon doonto mid caan ah marka wuxuu ku dhawaaqay haddii uu iibin waayo ugu yaraan 30,000 waxba inuu iscasilayo hubaashiina Walkmankii si weyn buu caan u noqday sidee nooca maanta in qof walba yeesho music uu si gaar ah meel walba ugu dhageysan karina xiiso weyn oo cusub bay lahayd markaas waxaana la iibiyay Sony Walkman ku dhawaad 385 milyan oo xabo haddana weliba sidaasay Sony markaas bilaabaysay qorshaheeda ah inay qabsato ganacsiga musica ugu horreyna waxay sameeyeen record label u gaar ah iyagoo la shuraakoobay CBS Records kadibna waxay shuraako kale la sameeyeen Philips taasoo ay ku heshiiyeen inay wada sameeyaan cilmi baaris si ay u soo saaraan technology cusub waxay ka qaadatay 14 sano laakiin natiijadii u dambeysay waxay noqotay inay sameeyaan compact disc ama CD waa qaab digital oo gabi ahaanba cusub oo lagu kaydinayo codadka haddaba haddii uu CD-gu xumaan lahaa kadib 14 sano cilmi baaris ah iyo 30 milyan oo ay ku maalgeliyeen dhisidda warshad CD wax walba wuu burburi lahaa laakiin nasiib wanaag waa halkan meesha ganacsigii Sony jihada cusub ay qaaday ka dhigtay mid aad u faa'iido badan wuxuu CD-gii soo kordhiyay Sony 4 turtur oo dakhliya ka koobaad record labelkii Sony wuxuu dakhli ka helay CD-yada laga soo saaray warshada cusub talabaadna waxay Sony u ogolaatay shirkadihii kale inay sameystaan CD-yada iyadoo kaga bedelatay in commission laga siiyo iib walba saddexaadna 1982 waxay Sony bilowday iibinta qalabkoodii u horeeyay lagu belay karay CD-yada ugu dambeyntiina shirkadoodii duubista ayaa ka iibsatay heesaha qaar kamid ah fanaaniintii adduunka ugu caansanayd si loogu iibiyo CD ahaan waxa intaas oo dhan sababtay guulays ku xidhan markii Sony ka heshay commission shirkadihii kale waxay ka dhigneed in formaatiyadii CD-yadu caan noqdeen taasoo si dabiici ah u sababtay iibinta qalabkii lagu isticmaalay CD-yada waxay yalna sii dhaqaajisay dalabaadkii musica kaasoo record labelka Sony soo saaray kadibna lagu duubay CD-yada lagu sameeyay warshadooda marka runtii marka oo mid kanida durduradaas income-kan Sony uu koro kuwa kalena si dabiici ah bay u la korayeen waxay CD-yadii si buuxda u bedeleen xaaladii dhaqaale Sony ugu dambeyntii wuxuu soo saarkoodii caalamku gaaray 100 milyan sanadkii iyagoo isticmaalaya faa'iidadaas waxay Sony si buuxda u iibsatay shirkadii CBS Records iyo dhammaan heesihii ka diiwaangashanaa qiimo dhan $2 bilyan waxay taasi ugu dambeyntii noqotay Sony Music Entertainment taasoo ilaa maanta ah shirkadda labaad ee ugu weyn adduunka ee soo saarta heesaha waxayna soo saartay albamada Bob Dylan iyo Michael Jackson Sony waxay noqotay awood maamusha musica laakiin haddana sidii caadada ahayd waxay weliba rabeen inay kasii ballaariyaan intaas sidaas darteed waxay Sony mar labaad go'aansadeen inay galaan ganacsi gabi ahaanba cusub wuxuuna ahaa video gameska 1991 waxay shirkadda Nintendo siibtaysay nidaamkii Super Nintendo Entertainment kaasay Sony ka caawisay dhismihiisa qaybta maqalka degdeg buu classic ku noqday laakiin wuxuu lahaa dhowr ciladood oo muuqda waxaana ugu weyneed inuu geemku ku yimid cajalado dusha laga talinayo marka waxa injineerada qasab ku ahayd inay isticmaalaan kombiyuutaro takhasuskoodu sarreeyo si ay u sameeyaan geemiska memoriga cajaladuhuna wuu yaraa marka uu hawl badnaa habraacigu si ay u sameeyaan geemam xadidan marka maadaama ay Sony iyo Nintendo yeesheen xiriir wada shaqayn waxay Sony soo jeedisay xal ah inay u sameeyaan system qaybta diskiga dushiisa ah oo u ogolaanaya inuu ku shaqeeyo game cajaladiisu tahay CD waxay ahayd fikrad fiican marka Sony waxay markiiba gashay hawshiisii laakiin waxay sidoo kale hayeen fikrad kale waxa macquul ahayd inay sameeyaan diski gabi ahaanba cusub oo ku shaqeynaya kaliya CD-yada sida ay Nintendo qabtayna kumay qancin talaabadan haddii ay shirkadaha geemanka sameeyay intay ka tagaan cajaladaha cartridgeska kadibna u wareegaan CD-yada waxay Sony samaysan kartaa console
console u gaara kadibna la wareegi kartaa dhammaan injineerada gameemka sameeya. Waxa Nintendo galay shaki weyn oo ah inay Sony khiyaamayso, marka waxay go'aansadeen inay iyagu kaga horeeyaan khiyaanada Sony. Waxa cid walba Sony ka tirsan qaadan wax ku noqotay inay Nintendo shaaca ka qaaday inay samaysanayaan isla gamekii CD-ga ku shaqeynayay ee Sony fikirkiisa u soo jeedisay, laakiin ayna kala wada shaqeyneen Sony. weliba si ay khiyaanada intaas uga sii badiyaanna shirkadda ay Nintendo la shuraakowday si ay ugala shaqeyso mashruuc waxay ahayd Philips. waa isla shirkadii la dhistay Sony CD-yada ugu horeyntii. cid walba Sony ka tirsaneyd aad bay u xanaaqday, laakiin ugu dambeyntii wuxuu arrinkaasi noqday qaladkii ugu weynaa ay Nintendo samaysay. waayo waxay Sony go'aansatay inay Nintendo la'aantood sii wadaan mashruucii. 1994kiina gamekii noqon lahaa Nintendo PlayStation wuxuu noqday bedelkiisii Sony PlayStation. maadaama PlayStation inta lagu isticmaalay CD-yada wuxuu ahaa mid soo jiidanaya injineeradii gameska si ay ugu dhex sameeyaan CD-yada. gameanka laftooda way ka aragti fogaayeen kuwa Nintendo ee ku shaqeynaya cartridgeska. ku darso Sony way ka ila dhaqaale badneyd Nintendo, marka waxay Sony konsoladoodii ku soo biiriyeen technology aad u badan waxayna ka dhigeen gamekii Nintendo kuwii carruurta yaryar. inkastoo Nintendo samaysatay version ay kula tartanto, laakiin waxaa loo sameeyay 400 oo game oo kaliya intuu jiro dhan, halka PlayStation ku kala haa ku dhawaad 8,000 oo game kala duwan ah. waxaas oo dhan darteed wuxuu PlayStation-kii iibsamay in ka badan 100 milyan oo xabo iyo ku dhawaad 1 bilyan oo game. Sony way ku guuleysatay dagaalkii konsolada, wuxuuna iminka gamingkii u noqday ganacsi aad muhiim ugu ah, waxayna guushaas ka dabageeyeen PlayStation 2-ga, kaasoo noqday gamekii ugu iibka badnaa adduunka iyagoo iibiyay in ka badan 150 milyan oo xabo. runtii waxay Sony si gaar ah isha ugu haysay hal shakhsiyad ama karakter, waxaanay taasi natiijo u noqon doontaa mid ka mid ah khamaaradii ugu faa'iidada badnaa ay sameeyeen iyo daraano aad u badan. Sony waxay rabtay inay weliba sii qaybsato ganacsiyo badan, sidaas darteedna 1989kii waxay iibsadeen stuudiyaha aflaanta ee Columbia Pictures Entertainment, kaasoo loo bedelay Sony Pictures Entertainment. waa mid ka mid ah 5 stuudiyo ee maanta ugu weyn adduunka kuwaasoo sameeya aflaamta. haddaba 1998kii shirkadda Marvel ayaa kasoo kabanaysay burbur dhaqaale, waxaana Sony Pictures meeshaas ka dhex aragtay fursad. way u tageen Marvel si ay uga iibsadaan xuquuqda filinay Spider-Man. waa shakhsiyadooda ugu caansan. gorgortan badan jiray, laakiin maadaama ay Marvel aad baahi ugu qabteen lacag waxay ku dambeeyeen inay ogolaadaan heshiis foolxun. waxay Sony ku iibsatay xuquuqdii filinay Spider-Man wadar qiimaheedu yahay $7 milyan oo qura, iyo 10 milyan oo laga siiyo filin walba ka sameeyaan, iyo 5% lacagta ay Fox Office-ka ka soo xareeyaan. laakiin marka loo eego caanimada uu Spider-Man sameeyay waxay tani ahayd discount aad u weyn, weliba way ka sii waali badanaysaa intaas. inta ay Sony soo daynayso filin cusub oo Spider-Man ah 5 sano iyo 9 bilood ee walba, iyagay gaar u ahaanaysa xuquuqda samaynta filimadu ee Spider-Man. kadib Sony Pictures waqtiba iskama lumin, waxaa soo baxay filinkoodii u horreeyay Spider-Man oo uu jilayo Tobey Maguire 2002, wuxuuna soo xareeyay faa'iido $825 milyan oo dollar ah, waxaana ku baxay budget ah $140 milyan oo dollar. hal filin oo qurayna intaasi ka soo gashay, marka wuxuu investmentkoodii sameeyay guul weyn. sanadihii la soo dhaafay Spider-Man wuxuu noqday hanti Sony ugu fadhida $9 bilyan oo dollar, marka waa waali markaad ogaatay inay $7 milyan oo qura ku bixiyeen xuquuqdiisa filin. iyadoon intaas nidhi haddana heshiiskaasi wuu uga sii fiicnaan lahaa intaas Sony, waayo markan ay ka iibsadeen Spider-Man waxay Marvel u soo bandhigtay inay ku iibsadaan dhammaanba shakhsiyaadkooda oo dhan $25 bilyan oo qura. laakiin maamulayaashii Sony ayaa sheegay inaanay dadku dan ka lahayn shakhsiyaadka kale Marvel, sidaas aanay ku iibsadeen xuquuqda Spider-Man oo qura. marka loo eego balaayiinta dollar ee Marvel markii dambe ka sameeyeen aflaamtooda, waa waali in la suuraysto inay Sony ku iibsan karaysay shakhsiyaadkooda oo dhan $25 milyan oo dollar oo qura. siday doontaba ha ahaatee, tiimka Sony kuma sii waari doonaan jawigaas, oo waxay Sony ku lug yeelan doontaa mid ka mid ah xog jabsiyada ugu weyn taariikhda adduunka. 2014kii shaqaalihii Sony waxay fureen kombiyuutaradoodii waxaanay ku arkeen fariimo foolxun kuwaasoo sheegaya inay jabsadeen group la yidhaa Guardians of Peace. waxaa maseejka ku qornaa, waxaan helnay xogtiinii oo ka mid tahay sirihiin oo dhan. manay kaftamin waxay haatarisku ka xadeen Sony terabytes dhan oo xog ah ay ka mid tahay dhammaan macluumaadka shakhsi ee shaqaalaha Sony. kadib waxay hackeriskii si public ah u sii daayeen macluumaadyo badan oo xasaasi ah oo ku saabsan Sony. waxaa ka mid ah iimaylo qarsoodi ah oo dhex maray maamulayaasha
macaamiisha Sony. Hackersku waxay sidoo kale sii daayeen dhowr filin koobigooda oon la soo fasaxin kuwaasoo ahaa aflaamta Sony. Kadibna waxay kala qaybiyeen qaab dhismeedkii Sony iyagoo masaxay xog badan oo lahaayeen. Waxaa jabsigaas loo bixiyay cyber attack ugu xumaaya ka dhan ah danaha Mareykanka. Markayay ahaayeen guruubka ka dambeeyay waxaan oo dhan. Haddaba in yaroon ka hor xog jabsiga waxay Sony Pictures sii dayn rabtay filin comedy ah oo la yiraahdo Interview kaasoo ku jeesjeesaya hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Kadibna in yar kadib waxay FBI iyo madaxweyne Obama ilaamiyeen inay North Korea tahay qada eedda xog jabsiga la saarayo. And we can confirm that North Korea engaged in this attack. Sidee doontaba ha ahaatee qaar badan oo ka mid ah khubarada ugu caansan cyber security-ga kuma qancin inay hawshan samaysay North Korea. Faahfaahinta xog jabsiguna ilaa maanta ma wada cadda. Laakiin laba gooraba inkastoo uu xog jabsigan aad ugu xumaa Sony haddana runtii uu noo celin dib Sony. Waxay Sony isku sii ballaarisay suuqyo cusub oo ay ka mid yihiin insurance-ka, banking-ka, biotechnology-ga, robotyada iyo baabuurta elektroonika. Shirkadii yareeday Akio iyo Masaru ku dhex bilaadeen Japan way dhaaftay xitaa intii ay filanayeen. Inkastay Sony la soo kulantay khasaare kala duwan intii ay ku soo jirtay wadada, haddana mar walba way u badheedhayeen khataraha si ay hore ugu sii socdaan. Marka dib loo eego alaabaha kala duwan ay Sony soo saarto, filimada, musiga iyo gameska, waa cadaalad in la yiraahdo sidan ma ahaateen adduunyada Sony la'aanteed. marka adigu ila socodsi fikirkaad ka aaminsan tahay Sony xagga commentyada. Haddaba haddii aad ka heshay videogan ma rabtid dabcan inay ku dhaafto fursada Samsung kuwaasoo runtii ah cadowga Sony ee ugu weyn. Ina rumayso Samsung aad bay uga weyn tahay intaad u malaynayso. Taliya taabo thumbnailka kadibna halkaas aynu isku arkayna.